Asalaamu calaykum. Maanta mawduuceena wuxuu ku saabsan yahay macalin kaasi oo u arkay waxbarashadu inay tahay mid caajis ah. Marka uu fikiray kadibna wuxuu furtay iskool asaga uu leeyahay halkaasi oo carruurtu wax ku bartaan iyagoo faraxsan waxbarashadana jecel oo aan caajis u arag. Arrinta la yaabka leh ayaa waxay tahay inaan weli la arag waxbarasho micnaha la jeclaado. Haddaba su-aasha isweydiinta mudan ayaa waxay tahay ninkan sidee buu uga dhigay iskuulkiisa mid la jeclaado oo carruurtu ay u soo ordaan. Atlanta, USA waxaa ku nool Ron. Ron ayaa wuxuu yahay macalinka aan maanta oo dhan ka soo hadlaynay. 25 sano ka hor, Ron ayaa wuxuu u qaatay shaqadiisa mustaqbalka ah macalinimo, micnaha inuu wax baro. Balse markuu shaqada bilaabay maalintiisii ugu horreysay, isla xisadiisii ugu horreysay may noqon mid asaga dhiirigeliso, waayo ardaydii oo dhan waxay dareensiiyeen inay wax xiisa ah u haynin waxbarashada. Intaas kadib, Ron waxa uu go'aansaday inuu wax ka beddelo sida uu wax u barayo carruurta. Haddaba muxuu sameeyay? Markii uu arkay carruurta inaysan wax xiisa ah u haynin, ayuu bilaabay inuu miiska ka qaado wixii buugaag ah oo saarnaa. Carruurta way la yaabeen, balse markuu miiska buugaagta ka qaaday ayuu wuxuu bilaabay inuu jaaso. Halkaas ayayna ka bilaabatay barashada asaga iyo ardaydiisa. Ron u suurtagashay inuu carruurta wax baro isaga oo heesayo, jaasayana galaaskana. Halkaas ayaa wax caajis ah ugu dambeysay. Maalin kaste waxay ahayd ciyaar cusub iyo hees cusub. Ardaydiina waxay bilaabeen inay jeclaadaan waxbarashada. Intaas kadib, Ron wuxuu ku fikiray maadaama uu galaaskiisa saxay una jeclaysiiyay waxbarashada in uu iskuul dhan beddeli karo. Marka waxaa ku soo dhacday fikradda ah inuu iskool furto. Wuu isku dhiirigeliyay wuuna go'aansaday ugu dambeyn inuu iskool asaga uu leeyahay uu furto. Halkaas iyo carruurtu wax ku baran doonaan iyaga oo heesayo. Ron wuu baxay wuxuuna ku laabtay magaaladiisa Atlanta, halkaasi oo ka helay bakhaar eber ah. Bakhaarkaasi uu ka dhagax dhigay iskuulkiisa. 4 sano kadib, Ron wuxuu dhameeyay dhisitaanka iskuulkiisa Ron Clark Academy. Halkaas oo carruurtu wax ku bartaan iyaga oo heesayo amaba jaasayo. Iskoolka wuxuu kaloo u yeelay meelo la iska soo taraarixiyo, taasi oo soo jiidatay carruur badan. Haddaba markaad iskoolkan aragtid carruur boodboodayso iyo carruur meel iska soo taraarixinayso iyo carruur heesayso, waxaad leedahay wax ma lagu bartaa iskoolkan? Balse jawaabtu ayaa waxay tahay haa, wax waa lagu bartaa. Wuxuuna ka mid yahay iskoolada ugu waxbarashada fiican ee ku yaala Amerika. Halkan carruurtu wax way bartaan, balse waxay wax ku bartaan waddo fiican. Waddadaasi oo ayaga laftirkooda jeclaysiinaysa waxbarashada. Imtixaamo way qaataan, buugaag way akhriyaan, homework way qaataan. Balse waxa meesha ku jiro iskoolada kale ka duwan ayaa waxay tahay ciyaartaas, heestaas iyo meelaha la iska soo taraarixinayo. Taasi oo ka dhigayso iskoolkan mid ka duwan iskoolada kale. Haddaba Ron ma qaldan yahay mise waa saxan yahay? Ha mogaanin inaad fikradaada nagula wadaagto comments-ka. Haddaba daawaday haddaad ka hesho muuqaalka maanta, ha iloobin inaad subscribe saarto si aad u daawato muuqaalo badan oo kuwan camal ah.